Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Somali Sky Channel. Fadlan subscribe saar channelka marka hore si uu kusoo gaaro akhbaaraadka caalamka, wax walba oo ka dhacaya iyo dhacdooyinka caalamka dhacaya. Fadlan walaal adoo mahadsan subscribe ku dhufo kadib gambaleelka dooro. Mahadsanid. Waxaan soo gudbinaynaa qiso dhab ah oo ka dhacday dalka Imaaraadka Sacuudiga. Dhegeysi wacan. waxaana la tilmaamayaa in gabadhaasi loogu yeeray inay dhaqdo mayd gabar ah oo da'deedu ay ahayd 30 sano jir oo dhimatay. gabadha ay qisadan ku dhacday oo laga waraystay ayaa waxa ay leedahay markii aan gurigii galay maydku yaalay ayaa si degdeg ah la iigu xiray maqsinkii aan galay ama qolkii. dadkiina waa iga soo yaaceen, waxaanan aad uga naxay sida la iga wada yaacay guriga la iigu cidleeyay. gurigiina waxaa ku soo harnay aniga iyo maydkii oo qura, waxaana meesha diyaar ku ahaa dhammaan wixii loo baahnaa in maydkaasi lagu mayro, mana aysan joogin meesha cid i caawisa. waxaan tala saartay alla subxaanahu wa tacaala, waxaanan bilaabay hawshii. markii aan maydka marada ka qaaday waxaan kala kulmay wax aan fila waayey. maydkii oo si aada isku bedelay muuqaal ahaan iyo nuuciyadda uu yahay oo weligay aanan arag. waan argagaxay. mar kale waxaan dhacay albaabkii, laakiin cidna igama aysan furin. waxaan rogrogay maydkii waana dhammaystiray mayristiisii anigoo markasta oo aan mayro ay ii muuqanayso inaan wasaqdii ka dhammeeyey qofkan. waxaana qaatay karfantii waanan ku karfanay. albaabkii baan garaacay si la iga furo, balse la igama furin. waan yaabay, si aan yeelo ayaanan garan waayey. waxaan ku dhawaaqay iga fura. maydkii waan dhammeeyey, dabadeedna si degdeg ah ayaa la iiga furay. dadkiina waxa ay hubiyeen inaan maydkii dhaqay oon hawshiisii dhammeeyey. iyagoo wejigooda yaab badani ka muuqdo ayaan aniguna iska tegey. laakiin xaaladii maydka aan ku arkay iyo weliba argagixii uu igu abuuray muddo dhan 5 casho waan miir doorsanaa. maalintii aan miirsaday ayaa nin shiikha waxaan u sheegay qisada aan la kulmay ama i qabsatay. wuxuuna igu yidhi, waa arrin yaab leh ee ku noqo reerkii. waxaanad weydiisaa 2 su'aalood. lambar 1, waxaad weydiisaa gabadhan dhimatay xaalkeedii siduubuu ahaa inta ay nooleed iyo dhaqankeedu. su-aasha labaadna waxa ay tahay oo reerka gabadha aad weydiinaysaa, maxaad guriga iigu xirteen? waxay tiri gabadhii waan ku soo noqday reerkii aan maydka u mayrayay, waxaanan weydiiyey 2dii su'aalood. tan hore waxa ay iga jawaabeen. hooyadii gabadha dhashay ayaa waxa ay tiri, inantaydu ma tukan jirin, mana soomi jirin, cibaado nooca intoodaba ha ahaatee ma aysan qaban jirin, waalidkeedna ma adeeci jirin. sidoo kalena waxa ay ahayd gabar neceb xijaabka oo iska weynaysiisa asturaadda. waxa ayna mar kasta xidhan jirtay dharka khafiifka ah iyo weliba kuwa ku dheggan, ayay ugu jawaabtay hooyadii gabadhaasi dhashay. sidoo kale su-aashii labaad oo ahayd maxaad albaabka igu xirteenna waxa ay kaga jawaabtay, albaabka aan kugu xiraynay waxa uu ahaa 7 qof oo adiga kaa horeysay ayaan ugu yeernay inay maydkan dhaqaan. mid walibana wuu cararay markii uu arkay xaaladda ay ku sugan tahay. sidaasi darteed sababta aan albaabka kugu xirnay waxaan islahayn yaysan ayaduna ka cararin. qisadan ayaa waxa ay tahay qiso dhab ah oo ka dhacday boqortooyada Sacuudiga. waxa ayna ku saabsan tahay gabar aan tukan jirin.